وهرين waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeynaa munaasabada 26 Juun ee ku beegan 62 guuradii ka soo wareegtay markii gobolada waqooyi xorriyadda ka qaateen gumaysigii Ingiriiska isla markaana ah markii ugu horeysay calan laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor halgankii dheeraa ee loo soo maray hanashada xorriyadda aynu ku naaloonayno maanta ma ahayn mid hadiyad lagu helay ama sahal inagu soo galay ee waxay ahayd mid naf iyo maalba loo huray dadaalkaas dheer ee halgankii xornimo doonka waxaa xusuusin mudan in walaalaheenna waqooyi kaalin mug leh ay ku lahaayeen waxayna u hureen dhiigooda libta 26 Juun ayaga ayaana si gaar ah astaan ugu ah midowga labada gobol ee waqooyi iyo koonfureed reer waqooyi la'aantood ma suurta gasheen awlaadii halgamayaashii xorriyadda iyo midnimada keenay waxaan ogahay halka ay maanta joogaan iyo duruufaha qasbay in la kala fogaado halgamayaashii ee 26ka awlaadoodii runtii kuma aynan riyoonaynin in maanta halka la kala joogi doono waxaan ballan qaadayaa in dadaalkii ay ku bixiyeen xornimada iyo midowga mid u dhigma aan ku bixin doono xalinta tabashooyinkii si loo helo Soomaali heshiis ah oo mustaqbalkeeda wadajir ku xalisata arrimaheedana guul la ku gaarta si wadajir ah walaalayaal ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo aan caawa inala joogin munaasabadan waxaa ka go'an in si dhab ah loo galo wada hadal walaalaheena reer waqooyi si loo gaaro natiijo sax ah oo raali gelisa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan habeenaya maalin haddii Ilaahay raado ka shaqayn doonaa isu furidda qulubta dadka Soomaaliyeed iyo inay wax wada yeeshaan inta aan la gaarin siyaasadda oo dhici karta inay muddo qaadan karto waxaa ka horeeya in dadka walaalaha ee Soomaaliyeed ay wax wada yeeshaan waxaan ula jeedaa inay wax wada yeeshaan maadaama ay wax weyn ka dhaxeeyaan labadii gobol maadaama dadka Soomaaliyeed ay walaalo yihiin oo ay isku xiran yihiin dhinac walba waxaa lagaba maarmaan ah in la ilaaliyo Soomaalinimada iyo walaaltinimada wax kasta oo keenaya in booga jiray la damqo waxaan ballan qaadaynaa inaan ilaalin doono waxaa kaloo ballan qaadayaa in xukuumadda aan anugu hormuudka u noqon doono in ay keeni doonto tabo iyo siyaasado isu soo dhaweynaya labada gobol iyo labada shacab ee walaalaha ah oo halka shacab dabcan isku ah waxaan rajaynayaa in ay dadka walaalaheena ee reer waqooyi ay niyad samaan naga fishaan waxaan ugu baaqayaa in ay ogaadaan in aan jecelnahay waxaan ugu baaqayaa in ay ogaadaan in aan ka shaqayn doono dantooda oo ayna marnaba dhacaynin wax haba yaraatee shacabkaas iyo maamulkoodaba lidku ayna ka shaqayno aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa 62 sano kadib waxaan filayaa in uusan inagu jirin qof raalli ku ah meesha aan maanta taaganahay inaan taagnaan ma inagu jiraa cid raalli ku ah 62 sano kadib inaan oo xorriyad haysanay inaan dhahno waan baahannahay waan gaajaysannahay waan dhibanaynaa sax ma aha isbeddel baan rabnaa isbeddelkuna wuxuu ka imaanayaa qofka naftiisa marka hal la isbeddelo
diyaarna ha loo noqdo inaan iswada bedelo kulligeen aadna waad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.